degmada Balcabane ayaa lagu qabtay xaflad ballaaran oo lagu taageerayo xisbiga kulmiye madashan oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayay khudbada ka soo jeediyeen odayaasha dhaqanka siyaasiyiin aqoon-yahano culimo iyo dadweynaha degmada Balcabane iyagoo muujiyay taageerada ay u hayaan xisbiga kulmiye iyo musharaxiinta madaxweynaha Muuse Biix Cabdi iyo musharaxa madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Saylici bulshada degmada Balcabane ayaa fagaarahan ay ku muujinayeen taageerada ay u hayaan xisbiga kulmiye waxay ku muujiyeen in ay ka go'an tahay sida ay u taageersan xisbiga kulmiye iyo musharaxiintiisa mas'uuliyiinta madashan ka hadashayna waxa hadaladoodii kamid ahaa magaydo maanta ay Balcabane taageero siinaysaa ama qof kamid u ogeynaya miyaynu geynaa waarkaysan degmadu maanta iyada ayaa iskeed soo abaabushay inay ka jawaabto fariintii ay halkan u mariyeen meediyaha dadweynaha Soomaaliland midna xaal baan ka siinayaa oo magacii reerka ay isticmaaleen reerkii lahaa horta xaal baan ka siinayaa la afar nin iyo laba nin midna magaca reerka ma isticmaali karo waayo waxa ku hadli kara oo kaliya ta magaca reerka suldaanka guud ee reerka waxaan leenahay Muuse Biix ha guulaysto kulmiye ha guulaysto Soomaaliland ha jirto walaalayaal reer Balcabanow dareenka muujiseen iyo taageerada xisbigiina u hayseen waxa ka marxaatay sida u soo baxdeen ee yar iyo weyn bay isugu timaadeen golahan aad ka habeyseen aad baa u mahadsantihiin degmadu waji iyo mowqif bay leedahay ku jahaysan xisbiga kulmiye iyo musharaxa Muuse Biix Cabdi maanta idaan kulmiye aynagana way ka xalansan tahay maantana waxa u sharaxan ninkii u soo dhintay Balcabane ee u soo dhaawacmay ee u soo balanbalay baa maantana musharax u ah waxa weeyaan cidda ay u caddahay ee ay sida dayaxa u caddahay waa la wada garanayaa waa xisbiga kulmiye barnaamijka xisbigu wuxuu doonayaa markii ay ku guulaysano Muuse Biix Cabdi xukuumaddiisu ay hogaamiso xukuumaddiisu waxay doonaysaa inay caafimaadka kor u qaado waxbarashada kor u qaado shaqaalaynta iyo shaqaalaanta ay tirtirto shaqaalaynta ay kor u qaado diinta islaamka iyo cibaadada ay kor u qaado nabadgelyada ay xoojiso oo sugto intaaba barnaamijyada xisbiga kulmiye iyo musharaxeena waxa weeyaan himiladiisa oo ku socdo ay hormoodka u yihiin dumarka reer Balcabane soo Muuse Biix codka ma siinayno Muuse Biix maanta inuu siinayno mise horeynu siinay Soomaa weeye runtii halkan waxa kale aanu ka yimid idaacadan iska dhageystaan oo anigoon Balcabane ma iman marka TV-gu baan daawado imigana waxa idin la hadli doona Axmed Xaashi oday oo wadani ka tirsan baa la yiri halkii laga filayeen TV-gu ka soo baxay Axmed Xaashi ayaa nin madow shaarbi weyn baa ka soo baxay Axmed Xaashi waakay waar Axmed Xaashi la sheegay dadkii baa mana ku dooqay marka waxaan halka waxa ka garanaysaan wax kale ma waxa weeye dad la'aanta in dadka la raadsado xisbiga kulmiye xisbi maanta la doonay Soomaa doorana ma hore u doorateen oo ilaa maalintu jiray kulmiye ahaydeen maantana kulmiyeenu nahay cid kale lama nihin